mid ka mid ah beelaha deegaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa duleedka magaaladaasi ku soo bandhigay hub iyo ciidan xoogan kaas oo ay qorsheeyeen inay uga qayb qaataan wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab oo dhawaan la filayo inuu ka bilowdo deegaanada Galmudug. ilaa 20 gawaarida tiknikada ah iyo ciidankooda oo hubeysan ayay beeshani oo ku abtirsata cayr gaar ahaan yabar dhowr rakac ku muujisay bandhigooda kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay abaabulkooda ka socday deegaano hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb. qaar ka mid ah odayaasha iyo horjoogayaasha beeshan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka dagaalka dawladdu sheegtay in wajigiisa labaad ka bilaaban doono. rabnaa geedka uu ku jira cadawgu in dawladdu nooga bixiso annaga raad raacayna oo dhufayskay nooga saar intaas baanu rabnaa deegaanka in badan baanu ku soo baaba'nay waa la og yahay ciidankii ahlu sunna wal jamaaca oo awali ka bilaabay dagaalka 40 nin buu ahaa iyo wax la mid ah ilaa iyo waqtigiina waa wadna waa soconnaa madaxweynaha Galmudug midka federaalka Xasan Sheekh Maxamuud kulli waxaan rabnaa annagu qof wax nasiyaadi iyo qof wax nasi hadda ma wadahayno waayo waxaan sidina waaba muuqdaan halkaas inooga muuqdaan wariyaan la dabar goynayo baalka loo duulaya baalka anagu intaas hor taagnay oo ka ceshanayna gobolkayga degmo iyo deegaan iyo gobol aan deganahay guri aan deganahay hal saac shabaab kama talin mana haysan shaqana kuma lahayn annaga aan iska kaxaynay haddeerna ayada u taaganahay aan israacno nimankaan iska fujinay aan isu nimaadno madaxweyne emow nimankaan aan iska kaxayno qalabkaaga soo qaad annaguna ka ayaga sidana. dhinaca kale saraakiisha iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda qabaa'ilka yabar rakace ayaa ku dhawaaqay inay kaalintooda ka qaadan doonaan dagaalka dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh ka hogaamin doono deegaanada Galmudug adkeeyayna in si wada jir looga qayb qaato. maantay waa maalin weyn fariin adag aan rabno inaan dirno fariintaas waa laba qaybood qaybna mid inaan u dirno cadawga shabaab ee qawaarijta ah raggan waa raggii ka xoreeyay deegaankan 2008 waxaa ilaahay mahadiis ah maanta inaad u diyaarsantihiin adinkoo xoolihiinnii hubkii iyo qalabkii aad kala baxdeen wata inaad mar labaad cadowgaas aad ummadda Soomaaliyeed ka dulqaadaan run ahaantii waxaa guul ah iyaduna inaad maanta haysataan dawladda Soomaaliya oo idinku gacan siinaysa la dagaalanka nimanka cadowga ah. ana laba kalmaan ku soo koobaynaa marka koowaad halkaan ragga fadhiyo mujaahidiinta iyo beesha halkaan fadhida waa beeshii bilowday 2008 halganka aan maanta rabno inaan mar labaad doorka ka jafno waxaan rabnaa cid kasta oo fariinteenu gaarto gudoomiyaha madaxweynaha qaranka madaxweynaha maamul goboleedka dhammaan cid walba oo ay qusayda arrintaanu inay ogaadaan inay yihiin dadka halkaan fadhiya halgamayaashii bilaabay halganka maanta faysto aan rabno inaan u diyaar garowno waa inaan ka qayb qaadano wajiga labaad ee wadanka dib looga xoreynayo nimankan khawaarijta ee nabadiidka ee ummadda horumar iyo nolol iyo sinaan iyo cadaalad intaba u diiday waxa meeshan iiga muuqda wajiyo badan oo 2008 saan oo kale si mutadawacnimo ah oo damqasho leh oo dadnimo leh inta qalabkooda u qaateen iska dulqaaday waxay dawlado iyo ummado badan oo midoobay wax ka qaban waayeen maantay oo dawlad iyo isbahaysi iyo ummado badan u haysano maanta meesha fadhida waa hambadii dadkii walaalahooda ahaa ee ka xoreeyay wadankan ka haray ciidankan meesha jooga maanta waa ciidan yaqaana la dagaalanka iyo ciribtirka khawaarijta ciidankan waxaa soo saaray oo isku keenay damiirkoodana soo dhaqaajiyey amarkii ka soo baxay madaxweynaha dawladda federaalka Senator Cabdixakiin Macalin Axmed oo goobjoog ka ahaa dhankiisa goobta lagu soo bandhigay ciidamadan iyo hubkooda ayaa sheegay in abaabulkani horseed u noqon karo ciribtirka cadawga iyo dagaalka aad rabtaan inay gashaan iyo dadka aad la galeysaan nooca ay yihiin dadka aad rabtaan inaad la dagaalantaan oo idinka horeeyay waxa weeyaan waa dadkii haweenka iyo carruurta ku qalanayay jidadka qaraxaad aragteen sameynayay reer dhan ee nabad qaba ee saaka gurigooda noloshooda ka soo raadsaday ee soo baxay ka soo tagay xaafadoodii arsaaq soo raadsaday islaan qaad iibinaysa iyo mid raashaah meel ku karinaysa bambada ku qarxinaya baabiinaya way tilaabo kastood u qaadaan iyo xabad kastood ku ridaan ilaahay aad ugu dhawaanaysaan niyadiin inaad hagaajisaan
halgankaasi waa halgan aad janno ku raadsanaysaan weeyaan qabiilna kuma qancinaysaan qoysna kuma qancinaysaan maslaxadda guud iyo danta caamka aad uga shaqaynaysaan waxaad ogaataan Soomaalidu waa dad mida waa wada ehel mida dhibaatadu haysataa hadday adiga maanta ka maqan tahay kaasa garab iyo gacan kaaga baahan marka inaad maanta u taagantiin halkaan inaad garab siisaan oo aad xaraynta deegaanada wali cadowga gacanta ku haya ka qayb qaadataan aad baad ugu mahadsantiin ma ka heshaa wararkeena Facebook ma xiisaysaa arrimaha siyaasadda taariikhda iyo madadaalada haddaba ku soo biir oo follow soo dhow baggeena Facebook like dheh lana sii wadaag saaxiibada muuqaalkan